وحير يا تربية عرورته سود هذا سلوا على النبي سود وسلوا على النبي مركز دنبوا قضب بين دونا أو طبعا قضب بين سرعة عندنا لكن ما أنت وحنا كهل لنا هردعة hordhacayga waxaa ka mid ah ha noqon waalid adigoon diyaar garoobin waxaa laga yaabaa dad badan inay khalad kelmadda u fahmaan inaad adigu guursataa iyo inaad waalid noqotood ubad dhasho waa laba aad u kala duwan soo hadday weli adiga ciyaalnimo iyo aanad fahamsanayn qofkan ku soo biiray markuu ilmo yimaado waa inay maankaaga ka dhaadhacdaa in mas-uuliyadi timi qof adiga kula mida maaha ilmo yaroo dacaanaha afka u gelino wadda dheeraad sii jeexaysa inay ku sugayso soo dhawaada sallu calaa nabi hadalkeena guda galana tarbiyadu gurigay ka bilaabantaa baynu ka dhigayna ilmahaaga fadhi barad markuu noqdo waxaad bartaa malihid walaalkii markuu qalinka ku qabsada malihidde caagga yar ama shimbirtu ku ceero xataa adigu kambaad leeday kaa malihid ha taaban ha dilin ha dharbaaxin ha ku qaylinin malihid maalin kasta ku celi sideedaba carruurtu automatic isuma bedelaan mudday qaadataa maskaxdooda inuu raad waxaanay ku yeesho so wuxuu laakiin dareemayaa inay jiraan wuxuu isagu leeyahay waxaanu isagu lahayn taasuu kala dareemayaa ilmahaaga inuu wax cuno xor uga dhig haddaad xataa cuntada waaweynka diidaysid xilliyada isneega ama nusaacaha aad siinaysa ilmahaaga halkaa intaad fadhiisiso u dhiib meesha nadiifi uu fadhiyo ama mara nadiifa ku gogol cuntada saxan ugu soo gur sii haddaa daadiyo wasakh maxaad ku diidi ubad baabad dhashee sii oo ka dhig qof xor ah ilmuhu 2 jir markuu soo gaadho waxaad bartaa waxyaabaha uu isagu xidhan karo sogoskoo kale ama sharabaadka ama la xidhan karo waxyaabaha uu xidhan karo bar waxaad bartaayoo kale inuu wax dooqan karo keenkuu xidhaa ku dheh soo uu farta kuu ku fiiqa u xidho waxaa jira kalar laga yaaba inuu ilmaha aad u jecel yahay oo mar walba uu kaa doorto waad u soo badin kartaa soo doorasho sii taasi waxay ka caawinaysaa inuu yahay qof xor ah oo wax dooran karo waxna diidi kara kan ma xidhanaysaa ku dheh kaaya kaa labadaa kala dooradhe ku qaato waxaa tira okay so wuxuu dareemayaa inuu isagu waxan leeyahay waxaad kugula talin lahaa ilmahaaga waxaad bartaa inaan martida loo tegin waa abtigaa iyo waa adeerkaa iyo ilmahan ragga laabta ka gelaya ilmahani maskaxdiisu weli may gaadhin heeruu ku kala saaro kani waa abtigaa dhow ama waa adeerkaa dhow kad bannaanka joogaana waa adeerkaa fog soo intuu balaayo kale afka uga gelinaa ilmahaaga waxaad bartaa martida inaan loo dhowaan ilaa ayay maskaxdiisu gaadhayso heeruu kala gartay waxa dhow iyo waxa fog isaga adiga iyo aabbaha ah idinku koobnaado ilmahaaga waxaad bartaa inaan martida wax la weydiisan oo aanu odhan nacnac ma sidaa lacag ma sidaa marka wax la siiya aanu ku boodin now ilmahaaga isha waa inaad kala hadashaa waa inaanu martida waxba ka qaadan sababtu tay isagu ma garanayo kani wuu kuu dhow yahay qof kastuu arku hadhowta wax weydiisan doonaa waayo waa la baray adna kamaad celinin soo ku tarbiyada ilmahaaga waxaad bartaa xuduuday martidu leedahay inuu jiro oo aan maanta dhan gurigaaga marka dambe noqon meel laga baqaba kabihiisiibuu martida xidhanaya sharaabku cabayuu qaadanaya xanjada afka kusoo jirtuu weydiinaya dushuu kaga soo boodaya martidii cunuhu iskaga duubaya qofkii taleefonkaaga isiibuu dhahaya wuu kaga ooyayaa adiga halaala iska dhibaa loo dhiibaaye iska sii maya qofka kharibmaya waa ilmahaaga maaha qofkan waxaa laga yaabaa hadduu maanta iyo biri kusoo boqda saa dambe inuu faraa kaaqado iga daa laakiin yaa baabaaya oo tarbiyad xumadu raacaysaa ilmahaaga soo ilmahaaga maya dheh waa fadhi barad markaynu kusoo bilownay soo waa inuu yaqaanaa maya ilmaha waa inuu yaqaanaa xuduud ay leeyihiin isaga iyo carruurta ay walaalaha yihiin waa inuu garanayaa sida ilmaha loo ixtiraamo ubadka la dhashay markuu khaldamo xataa bixi raaligelin isagana sidoo kale marka luqad xataa raaligeli waxay la noqonaysaa raaligelintu inay tahay wax weyn sidoo kale ilmaha markuu walaalka ku dhahdo haddaad ku taho walaalkaa wax ka sii ku dhe mahadsanid ku dhe adiguna ha barta mahad celinta adigu bar adigu adoo wax cunaya ilmahaaga duu ku yimada intaad saa u kala gaso xataa hoo maxaad baraysaa maxay in wax la isa siin karo maaha tii baryada ahayd laakiin inuu qofku isagu wax bixin karo ilmahaaga markaad wax siisa adigu waxaad ku tira wax iga sii hooyo gaajo kuma haysayaa wax iga sii waxaad kala baranaysaa ilmahaaga inuu yahay qof wax bixin kara marka la weydiisto ee aan ooyin isagoo 10 jir haddii laga taabto xanjada cunay dhulka isku tuuran bigta gurin sidii qof laga qaaday waxa adduunka ugu weynaa so ilmahaaga
waxaad bartaa wax la qarinayaa inay jiraan meelaha qaar waa inaanay cidi ka taaban karin aniga iyo aabba mooyaane walaaladaada kula dhashay ma taaban karaan hadduu taabto madaxa waa inaad isqabataa si uu waxaas wax dhaan jarisa agtiisa uga noqdo ilmahaaga waxaad bartaa wax la qarinaya inay weli jiraan intaad saxan biyo ku shubto iyadoo caashi fadhido eedadiiyo habaryartiiyo xaliima fadhido waxaad tiraa ii soo qabta aanu maydha sida dharka dabeetana si ahay u rugin waxba maba la qarinaya habar caasho arkiisa adaa arkaya kuwa walaalaa yihiin dhexdooda ha ugu maydhin caruurtaada markaad dhar u xidhayso waxaa taa qolkayna gel albaabka inoo xidh yes sidaas dhe markaad suuliga gashaad u qubayso waxaa taa inaga xidh albaabka iyo cid inoo soo gelin muxuu dareemayaa markaas in wax la qarinayaa jiraan oo aan cid kale la ogolan inay aragto marka bannaanka markuu baxo waxay kaa caawin doontaa haddii meelaha cidi ku xadgudubto isagoo ordaya inuu yimaado dowlada hooyo meesha waa la taabtay laanno adaa ku tarbiyaday ilmahaaga waxaad bartaa oo kale in wax la cafiyo bakeeri buu dhulka ku dhuftay wuu jajabay marka uu naxo waxaad tidhahdaa dhib male muxuu dareemay in wax la cafiyo ilmahaagu marka uu kaa cadhaysiiyo ee uu dootana sidaa kuu eego kaale ku dheh madaxa ka dhunka waan ku cafiyey ku dheh muxuu la noqonayaa in wax la cafiya inay tahay wax jira wax caadiya inay tahay in wax la cafiya oo aanay ahayn in qofkan haddii wax lagu sameeyo bes ay kala dhammaatay bar sida wax loo cafiyo ilmahaaga kalgacaylkaad u muujinaysaa ha noqdo mid adiga kaa dhaba isaga waxaa la weyn wax yar oo basiida alif buu saxay maanta kii ordayo ridda ka soo galay ama taleefon baad ku hadlaysaa ama waxbaad daawanaysaa ama 3 islaamood baa kula fadhiya hooyo alifka waa naga aamu alif layni ord hadhowbaadna bes isagu birood farxad buu dareemayay ma kula tii markaa biri inuu kugu soo celinayo sidaad maanta wixii farxadda lahaa uga dhagaysan waday biri haddii lasoo dila xataa ama lasoo kufsada kuuma sheegayo so dadka kale oo dhan waa inuu isagu ka muhiimsanaada hooyadaa macaan soo kumay dhalin idinkoo wada sheekaysanaya hadduu soo galo waxaad tirahda haye hooyesu haye waayo hooyo way weynto way garanaysaa waxaan lala hadlay inuu ilmaye waxaad haye allah kadibna haye isaga u dhammaytid waxaad tiraa okay hadduu wax kaa rabay waxaad tiraa haye kadibna haye markaan iminka hadalka dhameeyo ugu horeeya baan kuu qabanaya hadduu wax kaa doonay haye markaan iminka saa usoo kacayan hooyo kuu qabanaya kana rumee soo bar inuu qof weyn agtaada ka yahay oo markuu soo galo aad attentionka siiso taleefonka iska dabool dhulka dhig hadaad wax ka daawanaysay qof hadaad la sheekaysanaysay kay soo jeeso xaggiisa isaga focus ka saar dhegaysi sii halkaa waxaa ka furmaya inaad wada hadli kartaan labadiinu hadduu cid ka cabanayo sidoo kale waa inaad dhegaysataa masaasuu kugu sameeyaa okay ta aan kugu daraya kale waxa weeye ilmahaaga marka laga soo cawdo qof deriskaabaa ka soo cawday wuxuu ku ilmahaygii buu dilay macallinkii baa ka soo cawday ilaayaad isaga wax weydiiso ha xukumin ilmahaaga maalin walba waa lagaa saxantaa bahayarantiina waa kabtaysa dadkii oo dhan baad no isaga u yeedh li'anno maxaad furtay waddadii ahayd wada hadalkaa idiin furan marka waxaad tidhaahdaa haye maxaa isku maagteen waad iska garanaysaa ilma yar uu isdifaacaya isagoo candhufi ku tufay adigoo waxba ku samayno saa isaga taagan wuu intuu soo cararay tuu kugu yidhi miya maye dee waan riixay marka isagoo meel iska taagan bad adigu iska riixdi marka waxa kuu soo baxay ilmaha iyo adigu inaydan kala biqin ha xukumin ilmahaaga ilaa yaad isaga waraysato waa inaad kala garanayso hooyaata ama aabba ilmahaagu markuu been sheegay markale si fiican baad kala taqaana laakiin haddaad adigu beentii barta ka warantaa cagsigeedo tidhaahdo kuma dilayo walaahi kuma dilayo runta ii sheeg runta ii sheeg dee aniga riixay bug berri ma kuu sheegaya marka kuma sheegayo kaale kuma dilayo kaale kuma dilayo waan dhaartay kaale kuma dilay kaale dhug berri ma kuu sheegaya marka maya wuxuu wada waayo inaad beena waasti ku qiray aabbiyo hooyo beena lalayaala inaad tihiin ayuu isla markaaba isoo ka cabirtay soo habarin adigoo ilmahaaga beenta ha ku barbaarin fideogu waxaan kusoo gabagabayn lahaa ilmahaaga waxaad bartaa inuu doodi karo ood dhegaysan karto maaha inaad adigu xukunka iridotado adaa ka garadana adaa ka damaa calinkaa maalin hore ii sheegay xaasha no bar inuu doodi karo oo uu odhan karo anigana kaasaan ku qaldanaa asagana kaasoo igaga qaldanaa kadib waanu isku maagnay waan riixay wuu iqaniinay ogolow ilmahaagu inuu doodi karo ilmahaaga waxaad bartaa hadduu wiil yahay hadduu gabadh maryaha hoose wiilashan iyagoo yarar baynu gudnaa waxaad arkaysaa hooyo ilma madarasad u dirso surwaal kaliya u gelinaysaa
surwaalkii markaa wuxuu taabanayaa meeshii yarida la guday maanta dhan ilmi yaraa marada yarad buu marba saa u taabanaya carruurtii ka waaweyneed ba markaa ku caayaysa iyagoo u turjumanaya wax kale ama macallinkii baa dhahay war bil akhlaaq baad jooji waxaad wado marka ardaydu dhamina way soo eegaysa way ku qosqoslayaan ilmahan ceeb ma wado laakiin meeshii go'onayd baa xanantoobaysa soo ilmahaagu 6 bilood markuu jiro waa inuu leeyahay nigisiyaan iyo garamaan gaara hadduu wiil yahay hadduu gabadh yahay waana inaad ku barto inuu ceeb yahay dabadda in loo baxayado bilaa nigis leeyahay ilmahaaga waxaad bartaa inaan wax la caayin taana adigu ku tarbiyaday haddaad ilmihii caayayso oo hoostiisii wax ka sheegayso inantoodii ku hor caayayso aabihii caayayso hooyadii caayayso waxba aanad dhaafaynin caydu waxay la noqon doontaa wuxuu maalin kasta maqlo iska caadiya waxa dabadda kaaga bixi doona ilmo ummadda caaya isagana la soo caayo waayo wuxuu hooyada ka arkay ama aabaha ka arkay ilmo wax iska caadiya u yaqaana ilmahaaga ha ku dhex caananin carruurta ama dadka guriga jooga marka mid ka soo cawdo ama uu wax khalada guriga dhexdiisa ka sameeyo ama macallinku ka soo cawdo yidhahda waxbuu qayb waaye hebel heblaayo ina keen ku dheh meel gaara la tag haddaydan gurigu idinku filan bannaanka la fadhiiso ha barto inuu wax adigii isagu dadka kale iska xigtaan laakiin carruurta isagoo dhex fadhiya bahalayow iimaan kale bahalayow cuntada sidaa u cunaya bahalayow macallinku ka soo dacwooday bahalayow waxba garanaynin bahalayahay sidaasi iyaguna way isku qoslayaan shayn buu dareemayaa iyo xishood iyo ceeb qalbigiisu wuu jabaya soo ilmaha gaar la baxad ku taa waxaa lagaga soo cawda ama waxaa samaysan mar dambe ha u noqon yes macallin markaad ilmahaaga u dirayso wuxuu yaqaanaa maxay dadka sidii loo ixtiraamayaad bartay inaan dadka maxaan ku rahday la isku horqaawin in wax la qarinayaa jiraan imise waxbaynu ka soo hadalnay waxaad ku dhahaysaa macallinku waa macallinkii aad ka soo baranaysay tacliinta ama cilmiga waad u baahantay alif iyo bahadii uga dhigina wax weyn u tahay laakiin macallinku waa inaad dhegaysato ood maqasho wixii uu ku diro macallinku kuma caayi karo macallinku kuma dili karo macallinku ardayda dhexdeeda kuguma ceebayn karo haddii erey ama naanays baynu nidhahnaa ama nickname ama waxaan raalli kahayn macallinku kuguma yeedhi karo hadduu intaa mid ka mida kugula kaca aniga iisoo sheeg soo waxaa meeshii ka imaanaya haddii macallinku waa bini aadane uu ku gafa ilmihii isagoo orday inuu ku yimid gura aabbo hooyo macallinka waxaas maanta sameeyey meeshii baa la taabtay aad tiri yaan la taabanin maanta ardayda baa igu qosqosashay yes ilmahaaga waxaad bartaa waxa la dhahdaa maya inay jiraan xaqiisa inaanu ka tanaasulin cidda ugu badan is dhibaataysa waa ardayda haddaad maalinta kan ka weyne dilaba tidhaahdo dee iska daade waa walaalkaaye u arka in la dili karayna wax iska caadiya tahay ardayda galaaska la dhigataa maalinta horse carruurta waa isku daydaa waxaa laga yaabaa inuu tuuro deetana naga tagdee buu dhahay intuu yaro kundhiyo laanna waa qof gurigii lagu soo baabi'iyey berida keligii uma imanaya wuxuu soo gaxaysanayaa waxa la dhigta galaaska waxay mid la iska dili karaa yimida kaalaya weligiina dhibaatadaa wuu qarsan doonaa ilaa siday doonaan ardaydaasi ka yeesho wiil iyo gabadhba soo ilmahaaga waxaad bartaa mayada xaqa sidaad u soo bartay isagu inuu dadka kale xuquuqdooda ka fogaado waxaad bartaa wuxuu isagu leeyahay inaan cidi taaban karin qalinkiisa buuggiisa korkiisa maxaan ku dhahday wuxuu ka xanaaqaynaan bar si uu isu difaaco markastana u sheeg dadka ha kaga horraynin ku dheh laakiin cidda adiga kaaga horraysa ha cafinin oo ha u cafinin waxay kugu sameeyeen soo waa inay qaali la noqotaa naftiisu laakiin yuu noqon ilmo bahdilan guriga lagu caayay lagu qayliyey lagu baago hadhowta dadkoo dham iska dili karaan ilaa iyo hadhowta markuu weynaado uu ka sheekeeyo waxaynaan dhegaysan karin ilmaha waxaad bartaa markuu wax sameeyana wada hadli kartaan maaha inaad qayliso maaha inaad saxan tuurto inaad kab tuurto inaad intaad u yeedho fadhiisiso isagana dhegaysatid adiguna aad uu ku dhegaysto kadibna aad tirahda yaa khaldanaa adigoon dhigaynin qasab in adigu aad saxantay aad tirahda yaa qaldanaa suu u barto khaladka ciddale inuu sheego haddood adigu qaldantay kuu sheegi kara hadduu isagu qaldayaad u sheegi karto ha adeegsanin waalidnimadu inay tahay xabad waalidku inuu wax kasta isagu xaq u leeyahay ilmuhu xaq lahayn haddaan ku dilay waan ku dhalay haddaan ku caayo waan ku dhalay haddaan waxaa kuu dido waan ku dhalay haddaan anigu waan ku dhalay maaniga ku dhalay baad waxaa igu tiri maaniga ku dhalay baad saa igu tiri ilaa iyo waan ku dhalay daba nacow dhegta ka naco ha ka dhiganin dhalitaanka waxaad ku toojar garaysa ilmaha ka dhigan idhal kumuu dhihin xaqiiqda ma rabtaa ilmahani idhal kuma dhihin adiga iyo aabihiina habeenka idinkaa dantiina u raaxaysanay markaynu waalidnaynu xaqiiqada isu sheegno waxaanu shaqo ku lahayna qofka in lagu canaantaa waa khalad
so waxa laga yaabaa ilmahaagu hadduu maanta kugu dhahdo anigu may dhal baan inaad tiro hooyoy dunidii baa soo duntay qofka igu yidhi waa run dee waa run imay dhihin dee idhal carruurtooda anaa iska dhala marka waa inaad ogolaan karto waalidku waa inaad ogolaan kartid in lagula doodi karo maaha in lagu aflagaadaynayo maaha in lagugu qaylinayo taa waa inaad barto waalidka inaan hadalkiisa hadalkaagu ka sarraynin inaan waalidku waxyaabaha noocaasoo kale aanad ku odhan karin laakiin waa inaad bartaa waalidku inuu qof lala doodi karo haddaad bari weydo macalinkiisa lama doodi karo dabeedna halkaa wax ka dhalanaysa maxay musiibo aynan halkan kaga sheekayn karin ilmuhu waa inuu yaqaanaa xuduud meel aan la dhaafi karin waayo hadduu koob jabiyo iyo hadduu ilmo wax ku dhifto iyo hadduu adigoo waalida ku caayo inay isku xeer noqoto maaha inuu macalinkiisa wax akhlaaq xumaa ku yidhaahdo uu ilmuhu wax caayo iyo inuu ardayga wax ku yidhaahdaana maaha inay isku mid noqoto guriga dhexdiisana ilmuhu waa inuu ruul jiraa tv-ga xilligaa kadib lama daawan karo ibaadhkaaga 30 daqiiqaan ku siiye ka badan ma daawan kartid ilaa homeworka la qoro oo casharka guriga laga shaqeeyo casharka guriga ama homework sida loo yaqaano qur'aanka la qaybo la ii keeno aan arko wax daawasho ma ogolay markaa dhulka isla dhaca inaad tirahdo alaala xiga sii maya waa inuu lahaadaa gurigu xeer waxaad maya tiraa waa inay maya ahaadaan laakiin adiga iyo walaalkii markay labadoodu wada hadlayaan iyo markaad adigu la hadlaysa inay isku mid noqoto oo labadoodun hadalka maanta isku celcelin adiga iyo isaguna maanta hadalka isku celcelisaa ruul meel aan ka dambayno la gaadho waa inuu ilmuhu leeyahay ilmaha waa inaad mas-uuliyadda guriga ku bartaan hal koobu dhiib waxaad tiraa koobka intaad xasho saabuunta ku xal wax kastana waa inaad tareerin ka bixisaa maaha inaad saga dirto ilmihignaya waxaa waraya maya ilmaha waa inaad tareerin tustaa waayo adduunkaba ma laysma shaqaalaysa ilaa qofka tareer la mariyo waxaa dhahaysaa biyahan koobkan saabuuntaas marka hore ku dhaqaysaa markaad saabunta si fiican ugu dhaqdo biyaha cad baad ku dhaqaysaa haddana biyaha kale cad baad ku dhaqaysaa halkaasaad ku foorarinaysaa koobkaasi yuu jabin dhulka yuu ku dhicin cunto ku taaltaalayaan arkay maxaad u sheegtay in waddo la maraa jirto halkay ku dhammaataana yahay nadiif ilmaha bar u yeedh markaad waxaad tirahdo toonta inaad ii dhisho waa adiga mas-uuliyadda guriga ku bar ilmaha ka yar u yeedh waxaad tiraa ilmaha ag fadhi ilaali waxba ha ku dhufanin ha dilin sidaa u eeg ilaali suuligan ka soo baxaya soo bar ilmaha mas-uuliyadda guriga ku bar inuu mas-uuliyo qof yahay waxaad dhahaysaa adiga maanta dhowr hadayn adiga waxaan kuu dirayaa biyo halkaa iga soo qaad adigana dawada halkaa saaran soo qaad waa liqaya adigana garbasaarteeda halkaa saaran ii keen adigana aabbo sharabaadadaas ii keen adigana aabbo kitaabka ii keen diritaanka iyo mas-uuliyadda keen marka hadduu kitaabka dhulka ku rido waxaa taa maanta waad khaladay kitaabka ilaahay dhulka in lagu rido waa dembi koobkii hadduu jabiyo waxaa tira koobkii aan kuu diray waad jabisay qofkana waxa loo diro waa inuu ilaaliyaa soo bar ilmaha mas-uuliyadda ilmuhu markuu khaldamo ee uu ku dhahdo waxaasan sameey hooyo waa inaad bartaa inuu qofku khaldami karo soo waxaa tiraa waxaasaad samaysay haa aniguba waan khaldamaa waan ku cafiyey bar ilmaha in la khaldami karo ee aanu qofkii khalad ka gala kurka ka jarin laakiin in la khaldami karo ilmahaaga bar caruurnimadiisa ilmahaaga uu ogolow oo ku qiimee da'da uu marayo ilmiyo 5 jir haddaad u canaanato ilmo 10 jir oo kale inuu gaadho ma qaadi karo sidoo kale ilmihii 10 jir haddaad ula hadasho ilmo 5 jir oo caqligiisa 5 jir marayo taasna waxba ma hagaajin ilmuhu inuu wax qaso wax qubo wax jajabiyo khalad galo ciyaal la soo laayo kuwa guriga jooga la dagaalamo waxaasoo dhami waa qaadashada caruurnimada sababtoo taas ku cad maxay inay maskaxdiisa carbismayso oo aanay weli gaadhin halkay ku degilayd soo waa inaad u ogolaa laakiin inaad taado siduu u dhacay taa jooji u ogolow ilmaha caruurnimadiisa ilmahaaga la sheekayso weliba uga sheekay caruurnimadaadii sidaad u khaldami jirtay waxyaabo fanafaniya sidaad u samayn jirtay waxyaabo meelaha isaga egtihiin waxyaabahaas oo dhan la wadaag adigoo maxaynu soo marnay imisiyo 10 qodob inagoon weli waxba dilin welina waxba caayin welina waxba ku qaylin tarbiyadu maaha qayliya canaan